laakiin jacaylka ah biyahan ka dhaxarka badarka ma cuno banooniga ma cayaaro waa sanbaririxda buumaha iima galo kaba waaweyn baan qaataa xalay ma seexan waan qarwaa sariirtan ka soo dhaca kaligay baas la sheekaystaa ambuulada ma cuno ama teedka iga xirmay wax baan weeye kaas wax ka jira malahan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa walaalkiin Abwaan Xarago YouTube ka caawa iga daawanaysaan waa Abwaan Xarago official. waxaan rabaa caawa inaan soo bandhigo ama aan ka jawaabo su'aalo wax badan la igu weydiiyay Instagram-kayga, su'aalo wax badan la igu weydiiyay WhatsApp-ka, su'aalo wax badan la igu weydiiyay Messenger-ka. goormaad isbarateen fahmaluul ilaa intee isjeclaydeen? waa su'aal aan ka gagamban jiray, waa ka dhudhuuman jiray, laakiin markii aan fiiriyay shacbiga aniga i taageera oo YouTube-ka iyo Facebook-ka intaba iga taageera codsigooda waxaa caawa go'aansaday si geesinimo leh inaan uga jawaabo. Who is the Fahmaluul? Fahmaluul waa gabar xaaskayga ah. markii aan jaceylkeeda soo bandhigayay 2019 bishii 9aad bishii 8aad bishii 7aad saddexdaas bilood soo bandhigay ayada dhanba aad barateen ilaa October November December su'aalaheeda waa igu batay. fahmo waxaan isbaranay 2016 habeen khamiisa anigoo banooni ka imi ayaan fahmo isbaranay. barashadeenu waxay ahayd 2016 waxaan jeclahay bishii 6aad iyo 7aad inay ahayd labadaas bilood aan mid jeclaa laakiin ma hubo. meherkeenu wuxuu dhacay 4 bishii 2aad 2017 waxaan ku kulannay Malaysia. xaqiiqdii fahmo waa gabar aan aad u jeclahay weeye, waa xaaskaygii, waana muhiim ninka ragga inuu jeclaado xaaskiisa. ilaahay wuxuu leeyahay waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. dhowr heesood baan u soo qaaday oo aad dareemayseen jacaylka aan u qabo xaaskayga. waxaan rajaynayaa in dhalinyaradu ay igu dayan doonto si geesinimo leh ay u soo bandhigi doonaan jacaylkooda iyo sida ay rabaan inay ula mucaamaloodaan xaasaskooda. aniga waligay fahmo kama xanaajin, hadal xunna ma dhihin, waligeen isku maana dhicin. waxaan isku adeegsanaa erayada romantiga ah oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inta badan uu kula dhaqmi jiray, xitaa in uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la qabto hawsha guriga. waan samayn jiray xaaskayga, waan caawin jiray, marnaba iska maanan hor imaanin. hal habeen ayadoo caraysanna ma seexanin. waxaan rabaa in aan ka hadlo jacaylka aniga fahmo naga dhaxeeya. qodob baan rabaa inaan u kor istaago dadka su'aalahooda inaan kaga jawaabo, laakiin si guud fahmo waa xaaskaygii, waan jeclahay. waxayna iiga sokaysaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan maadaama ay xeradayda ku jirto. waa xaaskayga weeye, aad baan u jeclahay. haddii ay hadda maqlaysana waxaan leeyahay I love you so much, aad baan ku jeclahay. dhalinyaradu waxaa loo baahan yahay in ay igu daydaan ama ay jacaylka iyo romantiga iyo mawadada diinta lagu sheegay ee Quraanka in ay ka dhabeeyaan baa loo baahan yahay. laakiin jacaylka ah biyahan ka dhaxarka badarka ma cuno banooniga ma cayaaro waa sanbaririxda buumaha iima galo kaba waaweyn baan qaataa xalay ma seexan waan qarwaa sariirtan ka soo dhaca kaligay baas la sheekaystaa ambuulada ma cuno ama teedka iga xirmay wax baan weeye kaas wax ka jira malahan. jacaylka dhabta ah waa jacaylka aniga Abwaan Xaraga aan soo bandhigay xilliga aan Malaysia joogay oo aan u qabay xaaskayga. dhalinyarada marka ay soo weydiiso su'aashaas baan rabaa inaan uga jawaabo. shakhsigan wuxuu leeyahay fahmo meeqa sana ayaa isjeceshiin? fahmo inta ay xaaskayga tahay baan isjecelnahay, waana sii jeclaan doonaa inta cimrigayga ka dhiman. qofkan kale wuxuu leeyahay fahmo xaggay joogtaa? fahmo waxay ku nooshahay Minneapolis, cariga Mareykanka ku nooshahay. shakhsigan kalena wuxuu leeyahay fahmo meeqa wadan ayaad ku kulanteen ama
aad isugu timaadeen Uganda, Nairobi iyo Malaysia. inta badan dadka su'aalahan soo weydiiyay waxaa jira dad badan oo ka cudur daartay inaan kaga jawaabo su'aalahaas maxaa yeelay waa su'aalo personal noo ah aniga iyo reerkayga ama qoyskayga su'aalahaas oo kale marka inaan ku sii dheeraado ma jecli laakiin inta ugu muhiimsan waan idinkaga jawaabay fahmo intee jeclaydeen fahmo intee wadan ku kulanteen waxyaabahaas oo kale waan ka jawaabi karaa laakiin waxa total idin cadeynaya markii laga soo tago fahmaluul markii laga soo tago waxaan idin cadeynaya fahmo inay tahay xaaskayga aan jeclahay waxa igu qosol badnayd gabar su'aal soo weydiisay waa qariyo commentigeeda waxay tiri abwaana ma guursan doontaa fahmo uma la guursan doontaa waa ka jawaabaya si geesinimo leh rag waa ka dhuntan jawaabahaas oo kale haday ayadu ii fasaxdaan guursanaya waa geesinimo waay waa reemudugnimo wali xaniyo weeye dadka noocaas marka su'aalahaas soo weydiinaya waxaan filayaa inaad ka wada qanacdeen su'aalihii aad in badan soo weydiin jirteen oo ku saabsan noloshayda shakhsigan wuxuu soo leeyahay asagana abwaane heeso aad u qaaday baan soo gaartay fahmaluul heesaasi ma adiga sameeyay mise waa lagu sameeyay waxaan leeyahay markii ugu horeysa hadalkaadi weydiisay waxaad ka bilowday abwaane waxaan rajaynayaa in ay mistake tahay inaad tiraahdo abwaane iyo ma lagu sameeyay heesaha waa kaaga jawaabaya aniga ayaa u sameeyay fahmaluul maadaama ay tahay xaaskayga aan jeclahay intaasi in ka badanna ay iga astaahisho waxaa jirto heesooyin badan oo aan fahmo hortiina aan ugu luuqeeyay baa jirta qaarkoodna aan markii sameeyay oo aan uga digahayo xumaatada aan ku farayo wanaaga macaanay waxaa jira gabdha diinta maanacay madaxooda qaawiyay jirka maraba saarayn dhaqan muusika dhigto qabrigii madooba iyo moolka aakhiro gabdha moogayaa jira macan waan ka digayaa macna laawayaashaas marinkood ka leexo hayga noqonin micigood macanay waxaa jira malaayiin kaleeto muslimnimada doorto maqaanee bahaysto muran la'i u noolo iyo qaar mar hore tagay maryama kamid aho Aisha mudano mu'minaadku ma yaare marwa dhowrsan inoqo anna du'an malmalaya ilaahay mataaniyo hakusiya maxamuud hanasiya maandeeq anna du'an malmalaya ilaahay mataaniyo hakusiya maandeeq maxamuud u kow yahay maryamana u laba tahay muhibbada islaamkiyo muhaadaraadka diintiyo masaajidada aan dhaafayn lama hora mawaadine dalka meel kastuu yahay mashriq iyo maqaaribi ilaa maamul goboleed kuwa loo mashxarado margumaysi yeelayn madaxweyne daacada mawlow allahayow naga beer mid kaaso iga yeel midaan dhalay adiguna mudnaantii mar waxaad isiisaba mulkigaaga qaaska mahad baan ka celiyaa adiga marqaatiya ma sha Allah waa hees iyo maanso aan u tiriyay xaaskayga fahmaluul waxaa jira heesooyin badan oo kale aan u tiriyay laakiin meesha kuma soo koobi karo waxaan rajaynayaa in aad caawa ka bogateen noloshayda ahayd su'aalihi adiga soo weydiisay noloshayda fahmaluul iyo aniga iyo jacaylkeeni iyo waan rajaynayaa inaan idinkaga jawaabay waliba si geesinimo leh hadii ay xaaskayga maqlaysana waxaan leeyahay waan ku jeclahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh